cid kastoo nala soo xidhiidhaysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaanu u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jiray 30 sano kala maqnayn waxba aanaga dhaxan meel ka dhac ay tahay aanan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidhano idinkii xamarka heshiiya ma kama heshiin xamar cadow baa u aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliya diidan ee ka badhaysan ninka qarannimada iyo diidan col baan sidaa darteed in indhaha lagu laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala wada xubnaan wada hadlaya ma waxba ka dhageysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhexdhexaadinaya diyaar baan walaalada xamar nimanka xamar jooga aan isku Soomaaliyeena walaalanahay hadday taa indhahoodu arkayaan oo waan wada hadlaynaa intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayir ee kolba calan diyaarad yar oo gaar ah leedahay soo sawiraya heshiin meena wada hadlaynaa